ilma xadan tuugada kawana kusina ka oodina xilli toddobaadyadii ugu dambeeyay ay sii kordhayeen xadidda iyo afduubka loo geysanayo carruurta ayaa degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaa lagu qabtay 2 nin oo ka tirsan shabakada kuwaasi oo afduub u geysta carruurta isla markaana si iibsada. 2 nin ayaa waxa ay bixiyeen wareysi iyo halka laga soo diray waxa ayna sidoo kale ay sheegeen shabakada ay u shaqeeyaan halka xarunta u ah, balse daawade inta aanan warbixintaasi gudaha u sii gelin fadlan muuqaalkan Lexar siina share garay oo asxaabtaada la wadaag si ay noogu soo biiraan. degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa maalinnimadii Talaadada ahayd waxaa lagu qabtay 2 nin xilli ay halkaasi ka soo sabootin rabeen amaba ay kala soo baxsan rabeen gabar la sheegay in ay ka mid ahayd dadka ku sugan degmada Afgooye amaba carruurta ku dhaqan degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. 2 nin ayaa maalmo ka hor xaday gabadhani waxa ayna u soo wadeen magaalada Muqdisho, balse waxaa halkaasi ku qabtay ehelada gabadha oo halkaasi ka baadigoobayay waxayna ugu dambeyn u gacan geliyeen ciidamo ka tirsan booliiska degmada Afgooye oo ku sugnaa halka ay gaariga ka soo saari rabeen. 2 nin ayaa waxa ay sheegeen in ay ka tirsan yihiin shabakada ka howlgasha gudaha magaalada Muqdisho, balse inta aanan warbixintooda iyo wareysiga ay bixiyeen gudaha u sii gelin balna la daawo muuqaalkan laga duubay xilli la dhex marsiinayay wadooyinka waaweyn ee degmada Afgooye. ilma xadan tuugada kawana kusina ka oodina tuugati tuugo kawana kusina عاينا علامات يعني إنه علامات كلا احتلي كلا كوريك تلي أو يدوب لك ورالد وحي فزع عنده كوي كثير هذا عنده كوي كثير وسفير هذا عنده كوي كثير هذا يفزع كأنا دارك معاه عاينا فيرسو صوفي كاميرا وهذا وش كوالا يصير كو shacabka ku dhaqan Afgooye ayaa aad u soo dhaweeyay qabashada 2 nin waxa ayna uga mahadceliyeen laamaha amniga ee hawshani ku guuleystay. 2 nin oo loo gudbiyay saldhigga degmada Afgooye ayaa wareysi ay bixiyeen waxa ay ku sheegeen in ay ka kooban yihiin 100 qof isla markaana ay ka howlgalaan gobolada dalka oo idil. waxa ayna sidoo kale sheegeen in magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ay u badan yihiin isla markaana bilihii ugu dambeeyay ay halkaasi shaqadoodu aad uga socotay. waxa ay sidoo kale sheegeen in ala cunug ay ku qaataan $500 isla markaana ay sii gudbiyaan iyaga. sidoo kale waxa ay sheegeen in xilliga ay carruurta soo xadayaan ay iska dhigaan dad masaakiin ah isla markaana xaafadaha u dawarsi taga. waxa ay sidoo kale sheegeen in ay iska dhigaan dad shaqadoon ah sida haween in ay la shaqeeyaan haweenkaas ayaa waxa ay sheegeen in ay ciidaha u tagaan isla markaana ay iska dhigaan dad doonaya shaqo isla markaana si ay dharka ugu dhaqaan ugu taga. kooxdan ayaa waxaa la rumaysan yahay in ay la shaqeeyaan shirkado ajnabi ah oo ku sugan gudaha dalka, waxaana carruurta la xada qaarkood oo dib loo soo celiyay ay sheegeen in xilliga la xadayay amaba la qaadanayay ay miir ugu dambeysay isla markaana ay iyaga oo ogeen meesha ay joogaan ay mar dambe soo baraarugaan. waxaan waalidiinta Soomaaliyeed ugu baaqaynaa in carruurtooda ka taxadaraan isla markaana ay muujiyaan feejignaan dheeri ah, waxaana maalmahan soo kordhaya walaaca ay dadku